ayaa waxaa wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in shabaabkii qabsaday ay ka baxeen ciidamadii dowladda ee halkaasi ku sugnaan aysan weli kusoo laabanin. Salaad Cusmaan Xasan oo ah taliyaha qaybta booliiska deegaanka waan telefoonka kula xiriiray kana mid ahaa dadkii ka baxay goobtaasi ayaan weydiiyey bal inuu ka hadlo xaaladda magaaladii ay ka baxeen. deegaanka baxdo al-shabaab caawa waa yimaadeen halkii saac ayay yimaadeen haddee way yimaadeen baxdo haddana inay ka laabteen ayaa la ii sheegay annagu waa ka soo cararnay. waan garto marka maxay imise ayay ahaayeen shabaabka soo galay? wallahi shabaabka annagu ku og iyo laba maynaan dhihin laakiin laba baabuur oo ay ku socdaan nimanka koleytaba horsoogayaasha u ahaa yimid difaacooda kala banaanku joogay labadaasaa masaajidka weyn ee magaalada baxda ku yaala labadaas baabuur ayaa ciidan iyo madax koleytaba saareeda tagtay halkaasay dadka ay kala hadleen waa intaas aan ogna. wax dagaala miyaa dhacay markay soo galayeen? maya wax dagaala kamaysa dhicin yaa la dagaala. xaggayda kaga yimaadeen shabaabka oo soo galay dhankay ka yimaadeen? waxay ka yimaadeen dhinaca caliweyd meel la yidhaahdo ilaa qarash iyo quraan yaalay halkaasay maanta joogeen oo waxa weeye dadka ay la hadlayeen halkii saac oo caawiyana waxay soo galeen baxdo. waxaa jira annaga waan ka soo cararnay deegaankii shabaabna way soo galeen maxaad u soo cararteen? waxaynaan haysan awooddii hadda ayna isaga dhici lahayn. adiga yaa kaloo ka soo baxa deegaanka? dad badanaa ka soo baxay oo aan al-shabaab hadii la kulmahayo xiriir iyo calaqaad midnaan la lahayn. marka maamulkii degmada iyo deegaankaaba way soo baxeen gebigeed? way ka baxeen magaalada dhinac ay uga baxeen. awood ciidan miyaadan haysan? horta labada gaari waa labada magaalada gudaheeda soo gashay ciidan kala banaanka u joogay sida kuu sheegaba annaga hadda ciidamo iyo awood noo joogto waxa weeye ma jirto. awooddoona waa dadka deegaankaas un dadka deegaankooda dee dawlad maaha ma haystaan waxay isaga dhiciyaan. waan garta marka dadka deegaanka hadda aad la nooleedeen oo ah wixii dawlad dad uga baahnaad aad ka qaadanayseen shabaab uga soo tagteen? ciidan haddii ay ka awood badan yihiin inaad ka tagto waa arrin ciidan weeye dib u gurasho ciidan waa la sameeyaa marka waa ka dib u gurashaan ka samaynay koleytaba xaaladaha kaleo aan qaadi doonana waa hawlo ciidan oo aan cidna hadda idaacad laga sheegay. waxaa iga warantaa shabaab saraakiishooda masaajidka baxday tageen dadku way la hadleen maxay u sheegeen? waxay u sheegeen inay haddii la kulmayo dadka ay soo u yimaadeen dadkana waxa weeye ay yihiin dadkii waddanka xukumayay oo ay rabaan inay waddanka qabsadaan oo waddanka ay iyagu ka taliyaan. waa jirto intaasay dadka u sheegeen. wax oo xog ama ka haysan al-shabaab inay idinku soo wajahan yihiin ka hor intaysan idiin soo gelin? way al-shabaab dee meelaha ay joogaan iyo waa maqalnaa laakiin awood weyn oo hadda la dhihi karo waa awood imaan karta ma ahan laakiin waa dhumaalaysi ku tagaan waddanka kusoo galaan. maxaa mar hore ugu diyaar garoobi weysan inaad deegaanka aad joogtaan difaacan kartaan haddii waan idinkula soo qaado? waxa weeye difaacaas iyo hawshaasi waxa weeye dawladda iyo galmudug iyo ayay nagala dhaxaysaa ayagaas un baan usoo gudbinaa wixii ribooda iyo wixii hadba jira ayagaana ka sugaynaa inay haddii la kulmayo difaaca dalka ay ka qayb qaataan oo ay u diyaargaroobaan sidii dalka looga difaaci lahaa. hadda al-shabaab way ka baxeen deegaankii ma ku laabanaysaan idinku? maya annagu haddaba kama dheerin agtaan ka joognaa oo deegaanka kama dheerin waana joognaa deegaanka kama dheerin. marka ma doonaysaa inaad ku laabataan? ma doonaysaanba meesha kuma jirto deegaanku waa deegaanka yagii waa dalka yagii waxa weeye dib u gurasho baan ka samaynay meelna ka aadi mayno meelna uga bixi mayno.